waa dhacdo cajiib oo ka dhacday Somaliland. nin la rabay in la dilo oo xabaashiisa xitaa ay qodnayn oo la rabay in qisaas lagu fuliyo ayaa tiirka laga furay kadib markii ninkii uu dilay walaalkiis uu xamili waayay in rasaastaasi laabta lagala dhaco. haddaba ninkan badbaadiyey ninkan la qisaasi lahaa ee loo dili lahaa walaalkii ayaa warbaahinta la hadlay waxa uuna sheegay in sabab cajiib ah ay ku kaliftay in ninkani uu badbaadiyo ninkani oo ah ninkii walaalkii dilay. haddaba qisadan ninkani la badbaadiyey ee xabaashiisu ay qodnayd maanta ayaan barnaamijkeena maanta aynu ku dahaqaadaynaa. ha yeeshee daawada intaynaan barnaamijka u gudagelin haddaad channelkan ku cusub tahayna subscribe saar asxaabtaadana waqtigu imaroono ragga igama saaro dhanna ima ridaye laba nin oo ahayd in maanta lagu fuliyo dil qisaasa ayaa laga furay tiirkii lagu dili lahaa. arrinkan ayaa ka dhacday deegaanka Mandheera ee gobolka Saaxil ka tirsan ee Somaliland. halkaasi oo saaka tiirka la geeyay 6 maxbuus oo ku jiro ninkani la badbaadiyey xabaashiisu ay qodnayd. waxa ay daba socotay markii reeraha labada dhinac ay ka heshiyeen dilkii oo ay ma kala qaateen kadibna tiirka laga furay labadaas nin. Axmed Siciid Geelle oo ka mid ah raggii tiirka ka soo furay raggaas ayaa warbaahinta la hadlay. waxa ay sheegeen in sababta keentay in tiirka ay ka furaan mid ka mid ah raggaasi ay ahayd in ay dhegta u raaciyeen codsi uga yimi bulshada oo ahaa in ninkaasi aan lagu fulin qisaasta balse ay qaataan magta isla markaana loo duceeyo. wuxuu sheegay in muddo ay ku adkaysanayeen in dilka lagu fuliyo ninkaasi balse markii dambe ay gaareen go'aanka. haddii aanu nahay walaaladii iyo dadkii huseysay kiiska qisaasta go'aankan waxaanu qaadanay inaan ninkaas ka diya qaadan sida sharciga ah ee uu dilku ugu fulinayo markaas inaan marno oo aanu sabirno muddo 7 sannadood ah ayaanu diidanayn buu yidhi in aanu diya ka qaadano. waxaan maanta kalifay xukunka si weyn ayaa ummadda Soomaaliyeed noola soo hadashay dibadda iyo gudaha iyo Somaliland gudaheedaba. waxyaabo badan baan eegnay buu yiri duco qaata baana la yiri waana la bariyay waxaan go'aansanay inaan diyadii qaadano oo aan dilkii jabino. Axmed Siciid Geelle wuxuu sheegay in ninkan oo horey uu dilay walaalkii oo askari ahaa markii uu xadhigga ka furayay uu dareemay farxad xilli raggii kale lagu fuliyay xukunka dilka. markii aan saaka ka jabinay dilka ee xadhigga ka furnay dareenkiisu waxa uu noqday adduunyada farxaddii ugu weyneed in uu la kulmay. xabaashiisu waa ay qodnayd buu yidhi tiirka ayaana lagu xidhay in rasaasta madaxa iyo laabta lagala dhaco ayay ahayd. waan adkaysan kari waayey weliba anigu intaan orday ayaan xadhigga ka furay ma aanan la sheekaysan annaga dilkii kaa fulinayn wax dhaafsiisan maanaan odhan umaanaan gelin buu yidhi ninkani badbaadiyey ninkii walaalkii dilay oo warbaahinta la hadlay. waxaan ku heshiinay buu yidhi inaan kala qaadano magta waraaqihii baanu kala qornay iyadoo duco iyo baryo aanu ka qaadanay ummadda Soomaaliyeed ayuu yidhi Axmed Siciid Geelle oo ah ninka badbaadiyey ninkan qisaasta lagu fulin lahaa maanta. labada nin oo magacyadooda weli la shaacin ayaa ka soo kala jeeda koonfurta Soomaaliya iyo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. ninka reer koonfurka ayaa lagu helay dambi ah inuu dilay askari ka tirsan ilaalada xabsiga Hargeysa oo uu ku xirnaa iyadoo markii hore loo qabtay burcad badeednimo. ninkan kale ee ka soo jeeda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo horey uga tirsanaa ciidamada Somaliland ayaa dilay nin ay isku hayb yihiin waxaana ay maxkamaddu go'aamisay in lagu fuliyo xukunka qisaasta. diinta Islaamka ayaa qofta qisaasta loo fulinayo siisay 3 khiyaar oo ah in gacan ku dhiiglaha loo dilo in diyo uu ka qaato ama inuu iska cafiyo. inta badan ma dhacdo in qof tiirka la geeyay si qisaas loogu fuliyo uu ka badbaado xaaladaasi. haddaba ninkan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay culaysyadii iyo waxyaabihii soo wajahay tan iyo 7 sannadood uuna hal mar isku bedelay markii uu arkay in tiirka lagu xidhay
qoryahana loo cabaystay lana doonaya in lagu fuliyo oo rasaas magaxa lagala dhaco ayaan ku cararay buu yidhi. haddaba waa kan ninkan oo ka hadlaya xaaladda markaasi taagnay. cabdi siciid geelle waxaananu ahayn laba nin oo isku dhalasho xigay xagga dhalashada isku aabba iyo hooyaa walaalaa waxaanu ahayn laba nin oo walaala waxaa lagu dilay marka hore waxa uu ahaa askari qaran waxa uu ka tirsanaa askarta la yidhaahdo asluubta ee jeelka weyn ee Hargeysa markaas walaalkay waxa dilay nin xidhan oo maxbuusa ninkaasu waxa uu ku dilay baastoolad walaalkay waxa uu u lahaa saacadda uu dhintay shaqada uu lahaa furayaasha ayuu hayay albaabka laga baxay ee jeelka sidaas baa walaalkay lagu dilay maanta waa ninkii walaalkii dilay waa la idin xukumay maanta isagoo tiirka ku xidhan maxaa keenay in aad ka furtaan walaalkay muddada aan kuu sheegay ee 7 sano ka dambeysay ayuu mootanaa maantana dilkii waanu ka jabinay isagoo oo tiirka ku xidhan waxa sababay muddada dheer ayuu dhici weyday haddii aan kaaga warramo dilkanu dil adag buu ahaa walaalkay walaalo uu ku dhintay kabacdi haddii aanu ahayn walaaladii iyo dadkii uu qusaynayay qisaastiisu go'aan waxaanu ku qaadannay inaanaan ninkaas ka diya qaadanin sida sharcigaa ee uu dilku ugu fulayo shareecadu ugu fulinayso dastuurigu ugu fulinayso inaanu marro ayaanu ka go'aan qaadannay waanu diidnay muddo 7 sannadooda inaanu diyo ka qaadanno kabacdi waxa maanta kalifay xukunka maanta markii la fuliyey si weyn ayaa ummadda Soomaaliyeed noola soo hadashay si adag bay noola soo hadashay dibadda iyo gudaha iyo Soomaaliland gudaheedaba waxyaabo badan baanu eegnay duca qaat baa la yidhi si fara badan oo ka baaxad weyn sida ay yihiin dilalka ka dhaca meelahan oo kale si ka duwan baa la noola soo hadlay si ka duwan ayaa la noo bariyey sidaa darteed waxaanu ku fikiray haddii aanu iswaxweydiinay inaanu diyo qaadanno oo aan dilkii jabinno dareenkiisa ka waran markii aad xadhigga ka furayseen markii aanu saaka ka jabinay dilka ee xadhigga aanu ka furay dareenkiisu waxa ay noqotay adduunyada farxaddii ugu weynayd inuu la kulmay xabaashiisu way qodnayd tiirkaa lagu xidhay isaga iyo intii kale ee lala tooganayayba ma wada hadasheen idinkuyo markii aad xadhigga ka soo furteen ma wada sheekaysateen maya walaalo maanaan la sheekaysan oo maanu sheeko kale oo dheer sii gelin annagaa dilkii kaa jabinay wax dhaafsiisan umaanaan gelin wararka qaar ayaa sheegaya in markii horeba aad go'aansateen in aad dilka ka joojisaan balse arrintu ahayd in ay diyadu idii soo go'do oo aad arrintaas maxaa ka jira maya arrintaas walaala may jirin arrintaas waa arrin aan annaga naga iman go'aan annaga waxaa noo hayd inaanu dilkaas lagu fuliyey sharci ahaan iyo maxkamadda qaranka mid waliba ay ku fulisay inay noo go'aan ahaato laakiin waxaa sababay sidaa hore aan kaaga soo sheekeeyey si weyn ayaa ummadda Soomaaliyeed ay nooga codsatay inay maanta ninka aanu dilka ka jabino noola ducayso magtaa aad kala saxeexateen aad sheegtay ma ii sheegi kartaa intay ahayd waxaan ku yidhi inaanu diyo kala qaadanno magac waanu ka heshiinay waraaqi baanu kala qorannay taas waxay ahayd mid aanu ku heshiinay iyada oo weliba duco iyo bariyo aanu ummadda Soomaaliyeed ka qaadanay axmed siciidow markaa ninkii hadda maxorba oo suuqu jooga mise xabsiga ayaa dib loogu celiyey oo inta diyada laga bixinayo xabsiga ayuu ku jirayaa
ما waxa weeye walaalo waad mahadsantahay inaad su'aasha ay weydiiso waxa weeyaan annagu saaka ninka markii aanu inaanu diyo kala qaadano iyo wixii aanu kala qaadanay ka heshiinay dilka oo kaliya ayuun baanu ka jibinay xorriyadda inuu helo ciddii uu ka dhashay ama diyada ka bixinaysay ayaa u hay